waxay fiyeena ku noqotay iyadoo 23 gubila yar u dheer yihiin waxa Yurub kula noqotay niyad jab calool xumo iyo nacayb ay u qaaday dhaqankii iyo hidihii ay waalidkeed ku soo barbaariyeen maanka iyo niyadda oo kaliya kama dhaawacnayn markay ku laabatay Usteri balse waxa u dheeraa inay jid ahaan u gubatay oo dusheeda laga arkayo inay weeday barwaaqadii ay u baratay amiina waxay boorka ka tuntay balwadaheedii hore inta ay dhan iska ragtay dhaqankii dhowrsanaa ayay ku talax tagtay ka faa'iidaysiga xorriyadda aan dhamaadka lahayn ee Yurub nolosha cusub ee ay gashay ee damaceeda inay marto jid kasta oo ay maraan hablaha ficeeda ee Usteri ayaa sababay in biilkii ardaynimo ee aabaheed u soo diri jiray ku filnaan waayo waxaanay ku kaliftay inay raadsato shaqooyin kale ay ku kabi karto kala kaca dakhligeedii hore ee aabaheed u soo diri jiray iyo kharashaadka ka badbadinta ah ee ay nolosha cusubi u baahnayd sida awgeed waxay shaqo ka bilowday beer carruurta lagu ciyaarsiiyay oo ku taalay magaalada Fiyeena shaqada cusub waxay isku barteen Sara Biraad oo ah gabar Israahan Yuhuudiyad ah balse jinsiyadeedu tahay dalka Usteri Amiina iyo Sara oo ay goobtan ka wada shaqaynayeen waxa dhex martay saaxiibtinimo dheer iyo shaqo wadaag oo ay ku darsadeen inay hoy wada degaan iyo inay halkii ka sii wado dhaqan xumadii ay ka dhaxashay ardayda reer Koonfur Afrika ee jaamacadda wada dhiganayeen saaxiibtinimadii adkayd iyo jaalkii aan mar kaliya kala fogaanayn ee ay noqdeen ayaa Amiina ku hogaamiyay inay ku biirto dhaqdhaqaaqii lagu magacaabi jiray hibbi oo xilliyadaas aad uga howlgeli jiray qaaradda Yurub Amiina waxay iska dhagatirtay dalab uga yimid aabaheed oo ahaa inuu guursado wiil maalqabeen ah oo adeer u ahaa maalmaha ka mid ah oo ay saaxiibada Sara u raacdo boqosho ay ugu tagaysay qoyskeeda oo degan degmo lagu magacaabo Westendorf oo ku taala dalka Usteri qalbiga Amiina waxa si kadis u gala dareen awood badan oo aan bilowgiisa garan sababtiisa hase ahaatee aan ku cusbayn oo ay hadda ka hor mar isku aragtay Mooshe wiilka ay wada dhasheen Sara oo da'ahaan ka weyni waa nin aan albaabada qalbiga laga soo oodan karin waa musaxir aragtidiisa hadalkiisa iyo ragnimadiisaba daymada koobaad ayaa ay ka dheehatay daymadiisii koobaad qalbigeeda ayaa u qayb qabsaday hore ayaa ay u haysay warka wiilkan saaxiibada la dhashay inuu yahay dawliye military ah oo darajada kabtanka kaga soo qalin jabiyay jaamacadda inuu Sara 7 sano ka weyn yahay nin suugaan jecel gaar ahaan suugaantii hore oo ay ka mid yihiin hal-abuuradii weyweynaa ee suugaanta Usteri sida Wolfgang Mozart kabtanka Sara la dhashay waxa uu haween ku jeclaa timaha madow iyo indhaha waaweyn ee wiilka bartu madow yahay waa quruxda reer bariga socod leydsi iyo tamashlaa oo inta ay Amiina ku sugnayd guriga saaxiibadeed maalin nasiibku soo gaar yeelay iyada iyo wiilkan ayaa noqday bilowga isbeddelkii ku dhacay gabi ahaanba nolosheeda bilowgii go'aankeeda wuxuu ahaa inay nafteeda ka adkaato oo aanay lulin laydha ay horteeda ka dareentay ee xiisaha gaarka u gelisay wiilkan laakiin kuma ay guulaysan iska caabintaas oo waxa durbadiiba jidkeeda ka duway farihii u soo dhuuntay timaheeda iyo dareenkii maskaxdeeda bedelay ee ka dhashay gacantii gaadhay gacanteeda oo marka horeba kurbashada caashaq bilowgiisa la dubaaxisay xiskeeda waxa baraarug ugu wardambeysay markii wiilkan araggiisu maan qaaday oo dhunkasho dhamanka u saaray oo inta ay jiri dhaco aanay u adkaysan karin ka jirka iska gelisay sida ruux yara suuxay mar kaliya booday iyadoo hoos nafteeda ugu leh ileen ragga iyo dumarka waa la isku abuuray maalintaas Amiina waxay soo miirisatay goor ay aragtay iyadoo ku jiftay laabta wiilkan saaxiibadeed la dhashay oo inta ay dareenka caasha qarsan kari weeyay si daacadnimo iyo liidasho badan ka muuqato uga qiratay jacaylka ay u qabto halkaasna waxa ka bilowday talaabooyinkii ugu horeeyay ee xaaraanta ka dhashay Amiina iyo duuliyihii Yuhuudiga ahaa iyadoo gabar muslimada oo miyirkeedu la maqan yahay dareenka ku abuuray ee sida sibiqda ah ugu riday macsida markii miyir ugu horeysayna ay dhaqso uga baxsatay magaalada Fiyeena inkastoo ay ku dadaashay in guriga ay ka deganeed magaalada Fiyeena ee ku yaala jidka Q.3aad ay isku ilowsiiso warwarka xaashiqa ee kulanka xaaraanta ah kaga tagay haddana taasi waxba uma tarin oo meel kastoo ay tagto xusuusteeda waa ay ka tirtiri weyday ninkii ugu horeeyay meel ka dhacay dhowrsanaanteedii galabnimo laabteedana ku horeeyay dareenka dedegnimo in xusuusta wiilkan ay Amiina ka bogsan weydo waxa barkomataal ka dhigay baxsashada ay weydo meel ay ka gasho telefoon joogta oo maalin kasta u soo dirayay si uu ugu sheego dareenka xaashiqa qudhiisa ku beermay ayaa noqday xusuus joogta ah oo laabteeda ku soo horiya dimbishi caashiqa Mooshe oo Fiyeena kaga damiyay waxa uu ku guuleystay inuu si abqaaligeedka caashiqa ay ku beeray qalbiga Amiina kulamadoodii oo joogto noqdayna waxay dileen dhibicdii ka harsanay dabiirkeeda waxay caado uga dhigeen dhaqan xumadii eed wiilka ma wada saarna oo waxa baala in iyaduba hore uga halowday dhaqankii lagu soo barbaariyay waxaas uu ku abuuray in adkaan
iyo inay ku andacoto inay xaq u leedahay in ay jacaylkeeda qalbiga iyo jirkaba u furto kuna raaxaysato xorriyadda ka jirta dalkan aan laga dayin dhowrsanaanta iyo gashaantinimadii dadkeedu luulka u yaqaaneen. 5 sano ayaa amiina ku dhaafay foof daran habow iyo dhaqan xumo. waxaa dhaqankeeda laga dheehanayay inay islowsiisay sababta ay dadkeedii uga timid ee fiyaana keentay. si kastaba ha ahaatee maadaama oo aanay weli maskaxdeeda u bislaan inay si buuxda uga hor timaado qoyskeeda, waxaa warwar baneeda ka haystay waxay ku qancin doonto qoyskeeda marka la weydiiyo cilmiga ay baratay iyo shahaadadeeda. waana sababta kaliftay in wiilka yuhuudiga ah oo magaciisa moosho ah uu ka caawiyo inay hesho shahaadada sare ee PhD oo been abuura. shahaadadan waxaa lagu sheegay inay amiina dhammaysatay cilmiga daaweynta xanuunada jireed iyo kuwa nafsiga ah ee ka dhasha xaaladaha nafsiga ah. cilmigan oo afka qalaad loogu yeero basaasdii, caafimaadka nafsiga ah. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa qaybtii 3aad ee taxanihii amiin al-mufti. waxaanu taxanaha afraad ee kan xigana ku bilaabi doonaa sanadkii 1966 markii ay amiina dib ugu laabatay Urdun iyadoo wada shahaado been abuur ah oo PhD ah, iskuna dayaysa inay reerkeeda ku qanciso inay shahaadadani tahay mid sax ah, sidoo kalena ay halkaasi ka bilowdo isbitaal. intaanu ku kulmi doono taxanaha kan xigana. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.